soo dhaweynaya barnaamijka Kadis Council TV magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed oo soo dhaweynaya su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo ay awowga ilaa meeqa tirin kartaa awowgay waxaan tirin karaa qaybadii ilaa 10 ayaya ayay aaba dhashay ayay hooyo dhashay ilaa meeqa tirin kartaa ilaa waxaan tirin karaa 5 6 ayayo 1 2 3 ayayooyin ma tirin kartaa oo ilaa 6 geen kartaa maya taas macquul kalma si fiican ku fahmi waayay ilaa 3 ma tirin kartid sababta maxay tahay marka awoowe ilaa 7 ilaa 10 aa geen kartaa laakiin ayay aad sababta wallahi waa sababtaas barnaamijka Kadis Council TV magacayga waa Cabdifatax Maxamed Xirsi Cabdifatax waa ku soo dhaweynaya su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo awowga ilaa awowayaasha meeqa geen waxaan geen karaa ilaa iyo 15 meelaas ayayaashay waxaan geen karaa oo aabe dhalmasooyo waxaan geen karaa maya wallahi waxaan geen karaa laba ka badan ma geen karo sababta maxay tahay wallahi ma aqaan ma garanayo oo aabta oo ilaa 17 geen karta ayayna laba la u dhaafin kartaa sababtoo waxaan waayay aabba xaqiisa waan ku abtirsadaa Soomaa hooyo aab kuma abtirsado taas keenay waniya barnaamijka Kadis Council TV magacayga magacayga Xaliima la dhahaa ilaa meeqa tirin kartaa awowha abtiri yani awow ilaa meeqa geen kartaa hal awow bis yani tusaale ahaan awowga aabaha dhalay awowgi si dhalay garanaysa sama okay ayay ilaa meeqa geen kartaa meeqa ayay hooyo dhashay bis sababta maxay tahay waxaa keenaysaa isheeg waa ku abtirsanaa that's why Somali always culture ka fiiriyaan iyo tribes-kii ay badinayaan laakiin ayay ma fiiriyaan I don't know why ma garan marka ayayda adigu aabi abtirskaas keenaysa in awoow ku baratid okay waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Kadis Council TV magacaaga Faadil Maxamed Cabdi waa ku soo dhaweynayaa ilaa awowha waad sii wadi kartaa ilaa 5 iyo 6 ka badan ayay ilaa meeqay wadi kartaa ayeydayga ayay hooyo dhashay ayay aaba dhashay ilaa cideeda meesha ku joogtaan geen karaa meeqa ayay tirin kartaa ayay meeqa ay 4 ilaa 5 ayay geen kartaa oo aad taqaan in ayadooda aad sixi kartid okay maxay tahay sababta qofku uu ayayada u aqoonin oo labaad koow u yaqaan ama laba u yaqaano sababta awowayaasha ilaa 6 u yaqaan maxay tahay awowayaasha ilaa awowayaasha baraan ayayaasha kaar iskama siiyaan inay baraan ilaa iyo intii ka soo jeedaan sababtu waxa waaye inaysan barin ciyaalka badanaa kuma abaabiyaan ama maba is arkaanoo hortood bay dhintaan inta ciyaalka barbaa awowahana soo ma dhinto awowaha laakiin wuu sii sheegayaa waa loo sii sheegay aabihii baa sii barayo marka okay waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Kadis Council TV magacayga waa Faysal Cabdullaahi Cabdi Faysal oo ku soo dhaweynayaa awowayaasha ilaa meeqa awowyadayda awowgayga hooyo awowgayga aabbo waan garanaa intaas yani ilaa meeqa tirin kartaa ilaa 4 meelaas waa gaarsiin kartaa ayayna ay aabba dhashay ama ay hooyo ilaa meeqa tirin kartaa ayo hooyo aabba dhashay ilaa 3 waan gaarsiin karaa iyadana sababta maxay tahay aad awoow ilaa 4 u geen kartaa ayayna laakiin aad u geen karin ilaa 4 runtii taasi horta waxa waaye xumaaniga ma ahan laakiinse always dhanka aabun baan taageeraa ya Kadis Council TV magacayga waxaa la dhahaa Faysal Cali Maxamed Faysal oo ku soo dhaweynayaa awowga ilaa 3 ilaa 4 waa taqaanaa ayayda ilaa 3 4 ma taqaanaa ayayda ilaa 3 4 tan labaad ilaa 3 ma aqaani sababta maxay tahay marka ay aad awowga ilaa 3 u taqaan ilaa 4 ayayna aad ilaa 4 u wallahi ma ogi hooyo ilaa ayayda dambe ma ka sii hadli jirna ayayda hooyada dhashay iyo hooyada dhashay ayayda aabahe dhalan asagana ma ka wada hadli jiraan tan dhashay iyo tan ku xigto bas wax ka sii socdo ma laha okay su'aasha magacayga waa Deeq Xasan Aadan Deeq oo ku soo dhaweynayaa ilaa 4 ilaa 5 uu garanayaa sababta ayayo ilaa 4 ilaa 5 aad ma taqaanaa ayayday ayay aabba mas ayay hooyo ayay aabba labada kuma soo gaaraan waxba kama sheegi kara hadaadan xataa awowgaaba maad ku soo gaar awowgaaga saddexaad miyaad soo gaartay ama awowgaaba waad taqaanaa sababta maxay tahay wallaahi ma garan kara xilidka ma sii saaran taa hadna aan dhihi karaa
dhaweynayaa barnaamijka kadiska Ansal TV magacaaga magaxay waa Siyaad Muqtar waa ku soo dhaweynayaa marka koowaad marka labaad waxaan rabaa 3 su'aalood inaan ku weydiiyo su'aasha ugu horeysa waxaad dhashay wiil iyo gabadh wiilkii gabadha jaamacad iskuul high school bay soo dhameeyeen inaad jaamacad u dirtid weeyaan shaqayra ka shaqeysa hal mid bas aad wado inaad ka bixiso jaamacadda wiilka ka bixinaysa gabadha wiilka ka bixina sababta wiilka ugu bixinaysa wiilash badan wiilal badan shaqad ma helaan gabadha ka roont inaad shaqad hesho marka sababta wiilka jaamacad ugu diraysa gabadhina aad ugu diray maadaama labadaba aad wada dhashay ay jaamacadeen iskuulkiina dugsi sare soo wada dhameeyeen laakiin jaamacadda aad mid ugu qoriya wadi maxay tahay gabadhi haddii wax yar akhrisato shaqad ma waynaysid sababta maxay tahay gabadha bari waxa dhahay aabahay waa wiil ninkan aabahay waa waxa ay soo dirinay waqtay wiilal oga gabadha maxaad iyada jaamacad ugu diray wada maadaama iyada wax ku soo xusuusanayso oga wiilal ma fiicno gabadha jaamacad u diray leebs gabadha wiilal gabadha jaamacad u diray marka gabadha aad jaamacad u diray lahayd marka wiilku way ka fiican tahay marka iyadu wax barato okay tan labaadan ku weydiinayo oo waxa weeyaan aabaha ilaa meeqa u abtirin saddex hooyana hal sababta maxay tahay aabaha saddex ugu tirin karto hooyana hal ugu tirin karto waa ogtahay soo haddii qof ibtiri karo aabaha la raaxa aabaha iska garta marka qofku markuu dhinto aakhiro waxa loogu abtiriyaa hooyo marka sababta maxay tahay aad hooyo u baro wada abtiriskeeda ilaa inta daabe ka wallaahi iskuulka haddii wax qortay hooyo aabaha lagu qortaa saas baa ku gartay barnaamijka kadiska Ansal TV magacaydu waxaa la yidhahaa mustafa oo ku soo dhaweynayaa ayeeyada qofka meeqa ayeeyad ilaa aad u sheegi kartaa 3 ayeeyo 4 ayeeyo meeqo tusaalahan aniga aabahay waxaa la yidhahaa may ayeeyooyinka ilaa meeqo ayeeye sooma ayeeye waxaa weeyaan laba waay laba maan keeni karaa aba awowgana 3 camal aan keeni karaa yaa barnaamijka kadiska Ansal TV magacaaga Umar Aadan Usman Umar oo ku soo dhaweynayaa hooya awowgaha ilaa meeqa taqaanaa okay ayeeyooyinka saasoo kale ilaa 5 ayeey 6 ayeey ma keeni kartaa maya sababta maxay ma garanayo wallahi okay soo dhaweynaya barnaamijka kadiska Ansal TV magacaaga waa dhawaay Cabdiqafaar oo ku soo dhaweynayaa awowga ilaa meeqa keeni kartaa oo ilaa awowyaalka ilaa 6 ayeeyooyinka meeqa keeni kartaa 5 ayeeyo oo ayeeyo hooyo dhashay sii dhashay okay sababta maxay tahay dadka ay badana awoowe ilaa 6 7 ay u geyn karaan laakiin ayeeyo ayna u geyn karin ilaa xataa 2 ayna u dhaafin karin wallahi taasi jii ma garanay laakiin waxa u maleynaa waalidiinta oo odayaasha oo aabiyaalka oo yaalka dadka ay wax fahansiinay baraan hooyaalka ma barana u maleynaa ay kara oo hadalka hooy aabis ay dadka barana u maleynaa laakiin inta kale tiris ma baraan okay soo dhaweynaya barnaamijka kadiska Ansal TV magacaaga abay Cabdiqafaar oo ku soo dhaweynayaa su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo awoowe ilaa meeqa tirin kara awoow ilaa 10 tirin kara ayeeyooyin ilaa meeqa ayeeyo aaba dhashay ayeeyo hooyo dhashay ilaa meeqa geyn kartaa ayeeyo aaba dhashay ama hooyo dhashay labadoodaba ayeeyo hooyo dhashay maxaa geyn kala 3 ayeeyo ama 4 ayeeyo meeqa aaba laakiin aaba dhanka ayeeyo hooyo marka la dhahaa iidan 5 geyn kala laakiin dhanka awoow marka la dhahaa aaba anu abtirs ayeeyo kama wado waxaan ka wada ayeeyo labaad 3 ayeeyo waa geyn kala 5 ayeeyo geyn kara okay sababta markaad badanaa dadku ayeeyooyinka ayna 2 3 u dhaafin karin awoowna ilaa 10 ay u geyn karaan wallahi mooshi waa qof walba maskaxdiisa iyo sidii waalidkiisa wax u baraa okay Ansal TV magacaaga magacayga waa Maxamed Jamaal MJ waa ku soo dhaweynayaa su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo awoow ilaa meeqa tirin kartaa waxaan tirin karaa 5 ayeeyooyin ayeeyana 6 ayeeyo sida 6 meeqad ayeeyo tirin kartaa ayeeyo hooyo dhashay ilaa ayeeyo awooto kulli ilaa waan sii wada karaa okay sababta maxay tahay marka badanaa ayna dadka ayeeyo ilaa ay 2 3 u dhaafin karin laakiin awoowo ilaa 10 u gayn karaan waa kala naxariis badan yihiin sida oo waalidka ku abaabiyaan waa labadooda mooyana ma aha mid ina ku noolaataa waxaa kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kadiska Ansal TV magacayga kuwaad waa aadan waa ku soo dhaweynayaa su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo awoow ilaa meeqa tirin
ilaa 20 xitaa ku tarin karaa ayeeyo aabe dhashay ayay hooyo dhashay la meeqa geen ilaa 10 ayeeyooyinka anigu ayeeyo aabe awowga dhashay kama hadlay inaayadeeda kama hadlay ayeeyda hooyo inaayadeeda kama hadlay anigu waxaan ka hadlay ayeeyo koowaad labaad saddexaad ilaa 10 ku gaarsiin karaa ha really okay sababta maxay tahay dadka ay badana ayeeyada ayna laba u dhaafin karin waxa sabab ilmaha waxa lagu abtiray aabood sababtaas abtirka aabaha loo baraa laakiin qofka in waalidku isku dayaan in ayeeyada ilaa ayeeyada si dhashin la baro way fiican in la baro balse Soomaaliya waxay dhaqan u leedahay maadaama qabiil ayaga ay aanayaan inay aabaha badan ciyaalka maskaxda ka galiyaan